Hello baby, sii soco baby, soo soco baby, kala soco baby, isku soco baby. Arrinka xigmad Ilaahay u dhiibay farweyna. nin mucaarad ku ahaayo mursal falad degan dhaqaaqyo Michael Jackson buu la heesaa. waxaan idin hayaa fanaankii mursal falad degan ahaa oo xargaha soo goostay. Soomaali 5 heesood bay ka qaylin jirtay, hadda toddobaadkii 10 inuu soo saaro buu sii socdaa. waxba lagama qaban karo ninka kii qabiil ku diidanaa, kii xaasidnimo ku diidanaa, kii si kaleeto u diidanaa. iska dhaaf Soomaaliya qaramada midoobay baan waxba ka qaban karin hadday 10 qaraar dul dhigaan. qaramada midoobay sidee falad degan wax uga qaban karaan? soo nimanka Bashar al-Assad oo dadkiisa kiimika la dhacaya waxba ka qaban la Soomaaliya. allaaba waa mursal falad degan oo fankii Soomaaliyeed caarda diiqaha ka dhigay. waxaan barnaamijkan ku eegeynaa sirta ka dambaysa mursal inuu toddobaadkii 10 heesood soo saaro, halka fanaaniintii waaweynaa ee caanka ahaa ee Soomaali taqaanay ay la dhacayaan sanadkii sidii ay hal hees u soo saari lahaayeen. intaan barnaamijka u galin waa ninkii Shiine Culayaha musharax Shiine ku reebay oo idin leh nacala shiidaan ku yaali subscribe, like, share iyo commentiga intaba halay jumleeyo. doona maalinta jecel doona durbaantun 14 Febraayo durbaantun dabaaldeg dumar iyo rag baa dabaaldeg. waxaan maqli jiray reer hebel godkooda biyo ugu galeen ama daadkii xabaala qaaday. fanaaniintii Soomaaliyeed waxa u soo baxay nin mursal falad degan la leeyahay yiri iska fariista waa fariisi wax kale kuma fariisin. iyagu 3 bilood ama 6 bilood ama siday u badan yihiin sanadkiiba hal hees oo caata ah oo ay la soo galgashaan oo 10 xayisiin u soo samaystaan oo hadba idaacad u soo fariistaan oo hadba ummadda ka gadaan u sharaxaan bay soo saari jireen. nina kani toddobaadkii 10 heesood buu soo saaraya, waqti badan kuma qaadato, Facebook-aas soo dhigaya, idaacada uma hortago, xayisiin badan uma hor istaago. kaaga darane dadka iska jecelo markiiba boqolaal kuma daawanaya. kuwa fanaaniinta kale waxa ku iyagoo tacabkaasi galay haddana cid badani waqti gelin mayso. arrimahaasi maxay ku dhaceen? waxay ku dhaceen fanaaniinta kale waxay u baahan yihiin si ay hees soo sameeyaan inay nin abwaana raadsadaan, inay qisad doontaan, inay ula tagaan, inay dhahaan abwaanow miro nooga samay. abwaanku markuu u sameeyo inay la xamiiste la aadaan, la xamiistaha markay soo helaan inay misana muusikayste aadaan, muusigada marka loo soo tumo inay nin sawir qaado ah doontaan, marka videoga loo duubo inay mid janaal leh YouTube ay raadiyaan oo dhahaan war hebelow noogu soo tuur adiga dhankaaga ka shida karaya. ninka falad degana waxaan u bixiyay isku filan, waxa midna uma baahna. mirihiisa isaga leh, laxankiisa isaga leh, muusikadiisa isaga leh, kaamiradiisa isaga leh, YouTube janaalkiisa isaga leh, isaga wixii soo gashanaya. sidaa darteed subaxii markuu soo kaco waxaan ku iri qalabkiisu qaadanaya, halkaas la tagaya, wixii tumanaya, bas buu sii raacaya, meel beeru tagaya, kaamirada mobilkiisu hor dhigaya, jag halkaas ka soo tuuraya. arninku kalsooni isku qabaa weyna. waxaan maqli jiray waagii Soomaaliya la joogay heblaayo kalsooniye isku qabto darteed ninka ay shukaansato waxay ku aadaa diracay jikada kaga shaqeyso oo canjeerada ku garaacdo. mursal falad degan xataa heesaha wuxuu ku soo qaadaya dharkii uu ku seexan jiray, xataa labiska iga soo hagaajin mayo. nacala shiidaan ku yaal ninkaasi. bal video kan la eega 4 video kaamirada aan meel kale u gudbin waa mobilkiisa saasuu isu hordhigaya. markuu taabto oo shito buu gadalgaal uga baxaya sidii gaari reef la geliyay, gadalgaal buu baxaya, halkaasuu isqalqaloocinta ka bilaabaya. waxaan idin hubaa ninkaasi Soomaali oo waxa weeye ninkooda ragga ah kooda soo baxa lugaha saa u qabto xiniyaha ka saaro ka dhashay hadduu America iyo Faransiis iyo dawladaha xoog leh ka dhalan lahaa ninkaasi waa soo bixi lahaa
siduu isugu kalsoon yahay xigmadda ku jirta qaabkiisa ciyaarta hanaankiisa golo joogga waxaan ku yidhi wax laga sheekayn karo maaha ninkaa dushiisa lacag la samayn lahaa Rihanna Mareykan dhamaysay Shakira furatay Justin Bieber baa saa u laastay bal faladaganoo Mareykan u taga bal ka sheekeeya waxay hayaanba gelin buu saa uga urursan lahaa ninkaa joog iyo lixaadka ilaahay u dhameeyo u dhiibay ku jeclaaday jismigaagan ka jeclaade adigan ka joogi waaye jacelkaaga ijir guuray waxaa jiray odayaan aqaanay oo ku noolaa Soomaaliya ninkaasi waa gabi jiray gabyaabu ahaa haddana nin gabay yaqaan ma ahayn gabay baa haya buu u gabi jiray waa sida faladagan oo kale faladagan wixii hees maaha waa hees baa haysa waa iska hadal hooyee marka ninka odayahay waa gabay oran jiray isagoo aan gabay aqoon maalintiina 10 gabay buu iska tirin jiray waa iska sheekute hello waa iska hello baby oo kale wuxuu iska tirin jiray marka waxa dhacday ninka maalmaha kamid ah baa waxa la yiri dadkii deegaanka oo gabyaaga ahaa oo dhan haysu yimaadeen shaah baa loo kariyay qada loo sameeyay waxa la yiri qof kasto gabayga kuugu culus halka ka tiri odaygii baa gabay culus isla soo kala taagayo wuxuu yiri sagaaradu haday ooman tahay geeska laba taabto durwaagu haduu dhiiri galo waa madow yahay ase saabuun markii lagu dhaqo buu cadaaday carmal geed dabada loogu xiray way isku dhinayaa dadkiiba halka markuu marayiro Ahmed Takhula loo oran jiray George baa leeyahay kan gabay ma hay mid kale ma haysa markaas wuxuu yiri ha eeginina gabayga miraha ha eeginina qotayada eega macnaha kelmadu si ay isu haystaan isu raacayaan ha ku habsaaminina gabayga xikmadiisa iyo meesha biyo dhicisu yahay eega hadda waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed heesaha mursal faladagan miraha ha ku diidanina siba isu dhaafayaan ha ku diidinina hello baby soka xaway urka waxa ha eeginina qotayada iyo meesha u socdaan eega aniga shiina ah ninka shahaada u dhiibay waa ugu dhuftay fanka waa ninka saxiixaygaasi ninka nin laga hadli karo oo wax laga qaban karo ma aha waxa weeye ogolaansho rasmi ah baan fanka u siiyay waa anigu shiina taageerayaashiisa baan ka ahay waxaan rabaa inaan fanaaninta kelmadii dhaahdo fanaaniinu waxaan idin leeyahay de hal heeso caata la soo galgalan jirteen oo sanadkii soo saari jirteen waxa yimi nin de isagu nin ka tagayo toddobaadkii 10 soo saaraya marka laga yaabo maaragtay gabadha dib walba dhasho waxa la oran jiray war heblaayo dhal badan ama digaagba isagu hadda waxa garan meen waxa saa u sameeya muushadii sokorta mareereyba la garan waa waxa uu sameeya marka waxaan idin leeyahay war ninkaas soo baxay jaanisnimo furna meesha waa ka bariisan jirteen hadba aroos baa xun ka qaadi jirteeno de waxa weeye farad falaa xuduuge xooga ka dhusan jirteen ama masraxiya maartay inta kristaan baa dadka uga heesi jirteen taageerayaashiina wixii oo dhan hadda waa la isu dacareeyay ninkaas ay yimi hatta kharash soo ku doonimiyo Facebook asu iska soo tuura heesi lacagta iyo isku adkeynta maartay dadka waxa weeye ka marin jirteen isagu si hawl yar buu dadka ugu qaadaya ugu keenaya u siinaya waxaan idin leeyahay fanka waliin risaaqad dambe iyo shilin dambe uga dhadhaminayna ilaahay waxaan idin ka bariyaa inuu risaaqad khayr qabta idin siiyo tan shilin dambe ka helmaysaa ninkaas oo soo baxay ninkaas dadkii Soomaaliyeed qulubtooda soo hantiyay baleega heesiisa sida loo daawanayo maalintii kaliya 1 milyan baa fiirsanaysa iska daax kale marka waxaan idin leeyahay anoo idin tacsiinaya anoo shilka idin ku dhacay ka xun waxaan idin leeyahay maandhayaalo kan ha isku shiilu goynina intu sharaf laha ka soo qaadatay bal meelo kale gargaraacdo amal kale ka doonta saasa idin leeyahay mursal faladagan waxaan leeyahay mursalow 10 ka hesho waa nagu badan yihiin waqti aan ku dheegaysano ma hayno naga kala daa shantayadii baa nagu badnayd iyadoo nagu celi toddobaadkii 5 kaliya noo soo saar 10 waa nagu badan yihiin حتى وحوي سبتدي أحد وحوي لبلبن وقدك
maalmaha kale dadku waa shaqeeya shaqada ha ka habsaamin waxa uu yiri dumarkii hadda guriga waa ka shaqaysan laayihiin raggi waa shaqo tagi laayahay adiga saa lagu jeeda TV iyo xaafadii aad tagtaba waxa ka baxay adiga ka taaran marka mursalo ilaahay ka baq dadka xataa waxa ka baqaya cibaadadooda iyo salaadooda ina sijisaan ka baqaya nacala shiidaan ku yaal saatan silmahay waxa ku leeyahay heesaha kulay fanka ka bixi maysid nin sheedaan soo diray baa tay waa ku jeeda ka bixi maysid tartiib soo baan ku leeyahay oo iyo wuxuu ka dhamaan waxa ku leeyahay samaha hadale yey bal ka dhamaan hadalka laftigiisu waa dhamaada intaas aan ku leeyahay daacad noqo ku daadaal dulqaadka ku daadaal waa ninkii shiina culayha oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu على شيدان كيال على شيدان كيال شينه